way xorowda Syria waa tagay dhakhtarkii daacuunka ku noqday dadkiisa dhakhtarkii daawada laga sugayo oo dadkiisa daawo uga dhigay dil dib u dhac boob iyo barakac iyo qax oo maanta daawadiisii waxtar la noqotay 53 sano oo lagu soo afmeeray 10 maalin oo dagaal ah kooxda islaamiga ah ee Tahriir al-Shaam oo la wareegay dalka Syria hogaamiyahooda Maxamed al-Jawlaani oo ku dhawaaqay soo dhawaada muuqaalkeena maanta haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo bir oo YouTube-keena subscribe garay haddii aad page-ka naga daawanaysana inuu follow garay kuna soo dhawaada barnaamijkeena maanta dalka Syria waxaa 14 Maarso sanadkii 1971 taladiisa Afgambi ciidan kula wareegay Xaafid al-Asad oo ahaa aabaha Bashar al-Asad isigana maanta talada Suuriya laga gacan maroojiyay isaga oo ka cararay dalkii 24 sano ku amartaagleynayay Xaafid al-Asad waxa uu talada dalka Suuriya hayay 29 sano dhimashadiisii kadibna waxa xukunka qabsaday wiilkiisa Bashar al-Asad 17 July sanadkii 2000 taariikhduna marna ma xusin kaligii taliyay si sharaf leh xukunka uga diga dalkiisa iyo dadkiisa isagoo waxyeeleen ilaa iyo talada dalka xoog looga gacan maroojiyo oo isagana si salac iyo karaamo darro ah uu ku dhinto ama isagoo ka cararo dalkiisa maanta waxaa soo afmeermay xukunka kaligii talisnimada ahaa ee qoyska reer al-Asad oo soo bilowday 14 Maaj 1971 ilaa maanta oo ah 8 December 2024 oo ku soo dhamaaday guuldarro iyo fashil reer al-Asad 53 sano oo ay haysteen talada dalka Suuriya maanta indhahooda oo shan ah ayaa lagala wareegay dalkiina way isaga carareen iyagoo nafli cariya si kasta oo awood u lahaatana maalin waa laga adkaanayaa waana sunnaha dunida iyo kala wareegga xukunka ee aadanaha caasimadda Suuriya ee Dimashq ayaa si rasmi ah u gashay gacanta xoogagga mucaaradka ah ee kooxda Tahriir al-Shaam kooxaha mucaaradka ayaa la wareegay dhismaha raadiyaha iyo telefishinka Suuriya waxayna ku dhawaaqeen inuu dhamaaday xukunkii Bashar al-Asad madaxweynaha Suuriya ayaa ka cararay magaalada Dimashq lamana yaqaano meel uu aaday sida wararka Reuters ay u xaqiijiyeen saraakiil Suuriyaan ah tan ayaana ka dhigan in taariikhda Suuriya ay u bilaabatay bog cusub lana soo afmeeray xukunka qoyska reer al-Asad oo dalkaasi ka soo talinayay muddo ka badan nus qarni 53 sanadood intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena habeenimo waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan idin leeyahay tan iyo kulanti dabo bye bye muuqaalkan inoo share garay oo meel dheer inuu gaarsiiyo aad baad mahadsantahay